waxaanu ku sugannahay garoonka Cali Gadle Stadium ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland runtii sharaf weyn ayay noo tahay in aanu halkan ka soo qayb galno waxaynu ognahay dunida runtii kubadda cagta ku horumartay ee ugu horeeyo dalka Ingiriisku waxyaabaha horumariyay inay tahay warbaahinta oo runtii khaasatan kubadda cagta dhaafiyay ciyaaraha dunida inteeda kale inagoo taa ka duulana haddaynu u soo noqono dalkeena runtii ciyaaro aad u fara badan baa ka socda waxaana aynu oran karnaa quruxda dunida aynu runtii ka iibinano ee ciyaaraheena ah dadkan halkan maanta ku ciyaaraya waa dadka runtii iyaku runtii sabab u ah ama aan ilaahdo kaalin muhiim ah runtii ka ciyaara waa telefishinada ciyaaraha ka shaqeeya iyo telefishinada guud ahaan runtii horumarka kubadda cagta iyo sportiga inteeda kale runtii dunida gaarsiiya sidoo kale waxa iyana qayb ka ah sida la sheegayba runtii dadka istaarinta ah ee social mediaha sida TikTokerada Somaliland iyo YouTuberada Somaliland oo iyana runtii hadafka ciyaaraha qayb weyn ka ah in ay fariinta meel dheer iyo meel runtii fogba ay gaarsiiyaan ciyaaru waxaynu ognahay runtii xidigaha halkan ka qayb galay ee tartanka runtii loo qabanayo in ay runtii yihiin dad runtii ku dayasho mudan oo fariinteena ciyaareed runtii meel fog gaarsiin kara waxaan u mahadnaqaynaa runtii cid kasta oo ka soo qayb qaadatay qabsoomidda tartankan hadday ahaato kuwa maalgeliyey iyo hadday ahaato kuwa dhiirigeliyey iyo hadday ahaato taageerayaal runtii iyo ku xiiseynaya in ay xidigaha halkan ku loolamaya daawadaan oo ay ka soo qayb galaan runtii qolada garsoorka uu Mahdi Jawaasi halkan ka joogana waxaan leeyahay runtii tartankan waxa weeye tartan runtii aad u xamaasad badan oo xiiso badan oo kumanaan qof oo Somaliland iyo dunida inteeda kaleba runtii ay daawanayaan idinkana waxaan idin leeyahay Ilaahay ha idin fududeeyo tartanka kulay xidiga badan ama dad badan oo bulshadeena caan ku ah ayaad u garnaqi doontaan mararka qaarkood waxa laga yaabaa inaad dabeecadahooda kale aad aragtaan idinkuna insha Allah Ilaahay ha idin fududeeyo sharaf weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galno maanta tartankan saxaafadda loo qabanayo oo ay ka qayb galayaan 6 institution oo saxaafadda ah iyo 2 institution oo baraha bulshada ah ama social media ah waxay tilmaamaysaa kor u kaca iyo hayaanka ciyaaraha dalka waxa ay sheegaysaa in maanta ama muuqda in cid kastaaba ay jeceshahay in ay ka muuqato ciyaaraha dalka ama ay ka qayb qaadato runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa mulkiilayaasha garoomada yaryar oo culays badan oo caasimadda ka jiray wax badan aad u fududeeyay tartankan waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid meel dheer gaara sababtoo ah qoladii baahinaysay ciyaaraha ayaaba ciyaaraya oo waxaan ogahay warkooda inay jecel yihiin inay meel shishe gaarsiiyaan marka taasina waxyaabaha uu kaga duwanaan doona ay noqon doontaa shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga e-dahab